daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii Kaftanka Sportska oo xad walba hadahan oo kale aad kala socotaan barteena Facebook. barnaamijkana waxaa idin daadihinaya anigoo Cabduqaadir Boosa, dhanka farsamaduna waa DJ Borre. Ka bogasho waxa وكلك دلنت maanta ha iskarin indiigo kurbayuusan kugu ridin kalmadaheena qosolka kuleelqa sax u arag xulalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa fooda isu dari doona semifinalka tartanka East African Cup oo xiisiisa gaar ah ximbaarsa sanadan macallin Farmaajo ayaa durba isu diyaarinaya inuu u yeero 4 ilaa 5 ka tirsan xidigaha kooxda Shabaab kuwaas oo la aaminsan yahay in ay diyaar u yihiin marka ay timaado waajibaadka xulka qaranka walow gul walba ay gaaraan qaranku iyagu sheegan doonaan inkastoo kubadaha dhaadheer oo ay Kenya isticmaasho iyo qalabkooda sportis oo casri ah ay weeqi karto shaxda ku dhisan baasaska gaagaaban ee uu adeegsado macalinkeena qudbadihiisa ula xarbiya sida Jalaad Axada oo kale xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa xidigaha ay ka mid ka yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Umar Cabdirashiid iyo Sheekh Shariif shaki geliyay safashadooda kulanka ugu weyn Afrika ee Kenya iyo Soomaaliya garabkii hore ee reer Qardho Umar Cabdirashiid kaasoo hogaaminaya gool dhalinta qaranka 8 sano ee la soo dhaafay ayaa lagu qasbay inuu dhimo miisaankiisa muddo 2 sitimaan gudahood ah halka kabtankii hore ee qaranka Sheekh Shariifna uu shirkadda Adidas si hoose uga codsaday in surwaal sportis oo ilaa iyo qoobka qarinaya ay u sameeyaan si looga fogaado dareenka gabdhaha sportiska oo u rogma dhan kale xiriirka ayaa taasna ka biyadiiday ugu dambeynna xiriirka ayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur safashadiisa kulankan ku xiray bal in marka hore uu tibaaxo in kulankan kii ka horeeyay ee wareegga 16aad gool uu madax ku bixin karay daqiiqadihii dheeriga ciyaarta uu ka yara caajisay xiriirka UEFA ayaa xidiga caanka ah ee dayaxdan luusha ka baaraya maadada xidig Senegalese ah u ekeysiin karta mid British ah haddii baaritaanka dhacaankiisa laga helo midda dhabta ee uu yahay 22 jirkaasi la daala dhacaya Kalashiyaboli wuxuu xaq u yeelan doonaa doorashada qarankii markaasi 60% dhiigiisa u bato daayarkan ugu saameynta badan East Africa ayaa haysta 30 cisho ka hor baarista shaybaarka tiyo ay jirto in baaritaankan uu meesha ka bixi karo haddii wiilkaasi uu gaaro go'aan uu kaga fariisanayo gabi ahaanba kubadda cagta naadiga iskood u tababartay ee Somaliland ayaa salaasadii la soo dhaafay iska xaadiriyay gigida Addis Ababa si kulanka dambeys ah ula ciyaaraan kooxda Nabad iyo Nolol kulankaas oo u baaqday ciyaaryaamo siyaasadeed ayaa haddana wariyaasha Sky Sports Green Neville iyo Kimi Grager waxay iska weydiinayaan balanqaadkii macalinka xulka ee ahaa in gabi ahaanba la soo xiray kanaalkii Ethiopia naadigan lagu naaneysa Catalonia ee Somaliland ayaana diyaar u ahayn ka simid ahaanshaha liigwanka dalka maadaama kooxdan qolkeedu labiska xasiloonida wanaagsan ka jirta aysan macaash weyn ugu jirin midnimada ka maqan kooxaha ka dhisan koonfurta Soomaaliya golhayaha aan booska joogtada ka haysan kooxda Nabad iyo Nolol Cali Yare ayaa wali ku maqan dhaawac dhanka Facebook ah kadib markii darbooyin ribood ah shabaqiisa la heleen kooxda la qaban lahayd xilli ciyaareedkan ee xirta Sheekha 30 jirkan sheekadiisu ku bilaabato tababaraha xulkan saaxiibo dhowna ayaa xaaladiisa gaarka u wakiisha dhakhtarkiisa qaaska ee Sola kaasoo wali la xarbinaya hawshii loo idmaday 24 saac oo haatan sii mareysa 2 sitimaan taageerayaasha reer Matabaan ayaa xidigan ku qanacsan kursiga keedka ku cadaadinaya inuu iska bedelo dhakhtarkan oo haddii xitaa warqad deportation guriga loogu soo tuuro u haysta fake news xidiga Daahir Calasow ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaaray xidigta reer London ee Kaltuun Cabdullaahi wakiilka xidigaasi ayaa ka shaqeynaya diyaarinta dhamaystirka warqadaha canshuurta marka xidigaasi uu soo wareego London halka uu ku yaalo masraxa ay kali ku tahay laacibadaas oo waqtigeeda Facebook live-ka u ilaalisa sida shaqadeeda dhabta ah Jeganta News ayaa 2 jeer daabacday qodobkan xiriirka Faransiiska ayaa baaraya xidiga Faisal Xawaase bal in uu ka qayb qaatay kulankii isxaqxaqashada ah ee u dhaxeeyay Nimca Joker iyo Felis Wacwac ee baraha bulshada
laacibkaasi inta aan ka naqaano ah xidiga ugu asluubta badan horyaalka Faransa ayaa haddana laanta dambi baarista ciyaaraha ee Faransa u arkaan mid maal ama muruq si qarsoodi ah ugu taageeray afadiisa caanka ah ee Nimco Joker. 40 jirkaasi nolol maalmeedkiisa ka dhacsan jiray dekada Boosaaso waayihiisii Soomaaliya ayaase wax dhibaato ah u arkin eedeymahaasi oo sida uu sheegay yihiin kuwa sumcadiisa lagu dhaawacayo. daayarka qadarkeeyo ayaa dalab lama diidaana ka helay kooxda xidigaha geeska kadib wacdarihii uu ka dhigay kulankii ugu dambeeyay Xaliimo Gobaad. 20 jirkaas ayaa daqiiqadihii koowaad kubad la dhex qaaday xidigta daafacyada biyadeeska yihiin taasoo taageerayaasha YouTube u istaageen marqura. cimilada gigida Warshiiq oo ahayd mid kulul ayaa 25 jirkaas reer Finland u saamixi weyday kasoo kabsashada goolal waqti hore yimaade taasoo wiilkan kiilooyinka bariiska jim ka dhigta siisay guushan uu ku naaloon karo tan iyo inta ka harsan xilli ciyaareedkan. xidigta reer Sweden Deqa Afro ayaa ku cadaadinaysa qoyskeeda sidii ay u dhageysan lahaayeen dalabyada isdaba joogga ah ee ka imaanaya kooxda wiilasha. laacibadan lagu qiimeeyo 81 milyan ee gini ayaa xilli ciyaareedkan u yahay keedii ugu wacnaatan iyo imaanshaheeda horyaalka qaxootiga ku badan yihiin ee Sweden League. bandhiga isdaba joog ah iyo dhaawac la'aanteeda kulamada derbiga ee YouTube ayaa soo jiitay indhaha caalamka. 30 milyan heesta ee Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa hogaaminaya tartanka lagu ceersanaya xidigtan kulamada keedka ku jirta akhrisata Quraanka. markana xubinteennii wargeysyada iyo waxa ay qoreen. tiknoolajiyadda VAR oo dib loo daawaday ayaa referee Mark Dean ka saaciday in goolkii ee dacambaro ee uu dhaliyay timadheeraha reer London Cabdinaasir Sola uu ahaa mid offside ama garab dhaaf ah. VAR la'aanteed ayaase goolkan ka dhigi lahayd mid daaqada kala baxo mucjisadii maqaska ahayd ee Danadiifo boga koowaad ee Daily Mail. haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuurta ku raaxaysanaynaa. FIFA ayaa dib u daawanaysa goolkii Farmaajo ka hor darajadiisa haatan. kabtankii hore ee Tayo ayaa meel 55 yaardi u jirta shabaqa kooxda shacabka ka soo toogtay waana free gigi u dheeraa taariikhda abid inta la xasuusto. Garawa News ayaa daawacday maanta. kooxda BBC-da ayaa dhumisay malaayiin taageerayaal ah tan iyo ka bixistii macalinkoodii hore ee Yusuf Garaad. naadigan faca weyn ayaa xidiga suju ah siiyay mudnaanta koowaad kuwaasoo af Soomaali qoristooda ka liita cadaan goordhow bartay Soomaaliga. isla BBC qaybta Ingiriiska ayaa qortay saake. adaan ku dalmuto heshiis baan doonayaa arrinkan kugu daydayaa. waa gabagabada barnaamijkeennii kaftanka sportska waana dooqa Maxamed Qali from Oslo fanaanka Cali Ayman daawasho wacan. adaan ku dalmuto heshiis baan doonayaa rajaan kugu daydayaa ku darsadayo runtii dacwaa ka bannaan